ma miyir qabaan intooda badan marka da'daas ninka dhallinyarnimadiisaas ilaahay ku gartee ilaahay ku caabuda ee daacadda ilaahay ku barbaara waxa uu ka mid noqonayaa toddobada ilaahay jalla wacalaa uu u hadhayn doono maalinka harhka alla mooyaane har kale uusan jirin sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluhu imaamun caadilun wa shaabun nasha'a fii cibaadati اllah ilaa aakhir alxadiid yowma alqiyaama ilaahay caza wajalla harhkiisa mooyaane har kale ma jiraayo toddobada harhka ilaahay hoos joogsanaysa ee halkaa banka qiyaama kaga badbaadi doonta dhibaatada qiyaamada jirta waxa uu nebigu ku sheegay inuu ka mid yahay nin dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadiisii ku barbaaray ilaahay daacaddiisa yowma alqiyaama maalinka dadku ay saro joogi doonaan maahin maalin keliya maahin 2 maalmood maahin 2 bilood maahin 2 sannadood waa 50 kun oo sannadood weeyaan waa maalinka nebigeennu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka cadcaadda ayaa madaxooga la kor keeni doonaa cadcaadda ayaa dushooda la keeni doonaa qof walba dhididka jidhkiisa ka baxay ayaa dhulka intuu galo 70 xusul dhudhun intuu dhididku dhulka uu galo ayaa haddana qof walba dhididkiisu ku soo noqoni doonaa daada qof walba halkii dembigiisu intuu dembigiisu ahaabaa laga dhigi doonaa dhididkiisa qaar baa nebigu yidhi sal alla alay wasalam kuraamaha ayaa dhididkoogu iman doonaa qaarna jilbaha ayuu joogsan doonaa qaarna halkaa guntiqabadka dhexirka la idhaa buu dhididkoogu iman doonaa qaarna garbaha ayuu iman doonaa qaarna wuxuu nebigu sheegay halkaa qowlalada ayaa dhididkoogu iman doonaa waa qof walba bad isaga u khaasoo cid kale aysan la qabin waa maalinkaasaa ilaahay leeyahay uu nebi maxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam toddobada ilaahay uu hooskiisa ugu hadhayn doono waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi caza wajalla nin dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadiisii ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa ilaahay daacadiisa ku barbaaray allah inaga dhigo maxaa ninka dhallinyarada loogu khasisay maaragtana xadiiskaas oo looga mid yeela toddobada ilaahay u hadhaynayo laanna xilliga dhallinyarada la yahay waa xilliga la waalan yahay weeyaan waa xilliga ninka dhallinyaradu dhimashana uunan ka biqin xanuunna uunan ka biqin gaajana uunan ka biqin mustaqbal hor yaallana uusan jirin ee nolosha dhan ee adduunyada uu haysto in dadku sidiisa ay wada yihiin dhallinyarnimaduna waa qayb ka mid a waalida weeyaan marka ninka da'daas ilaahay ku caabuda ee masaajidda ku camira ee diintiisa ku barta ee cibaadada iyo khayrka ku dadaala fadligiisu caadi maaha waxa uu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyey qisas fara badan oo dhallinyarada ku saabsan qur-aankuna waa ka warramay oo qur-aanku wuxuu ka warramay asxaabulkahf innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa ilaahay baa sheegay dhallinyaray haayeen baa ilaahay yidhi dhallinyaro aamanuu birabbihim rabbigood bay rumeeyeen wazidnaahum hudan baa ilaahay yidhi annakuna hanuun baan u beerinay baa ilaahay yidhi hanuun baan u ziyaadinay waddan waxay ku noolaayeen ninka boqorka ee waddankaa xakuma uu dadka ugu yeedho inay dadku isaga caabudaan oo la odhan jiray magaciisa tuqyaanuus marka iyaku ilaahay bay garteen dhallinyaradaas id qaamuu faqaaluu rabbunaa rabbu الsamaawaati wاlأrض lan nadcuwa min duunihi ilaahan laqad qulnaa idan shataطa
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا dadkii kale oo dhan ee wadanka ay kula noolaayeen oo dhan ninkan gaalka boqorka caabudayaan ilaahu haystaan oo rabbi u aaminsan yihiin laakiin dhalinyaradaasi waxay yiraahdeen maykan waa bashar markaas boqorkii baa loo sheegay lagu yiri wadanka waxa ku gula nool dhalinyar maaragtaana ilaahay rabbinimadaada inkiraysa markaa uu ciidan u soo diray markaa dhalinyaradii laba ayaa loo bandhigay laba mid baa loo bandhigay in maaragtaanay diinta islaamka ay la yimaadeen ay ka soo noqdaan oo gaalnimadii ay dib ugu soo noqdaan imma in intoo iyaga siday u dhayihiin intoo la qabto la xidhxidho dhagax tuur lagu dilo dhagax tuur innahum in yadharu calaykum yarjumukum aw yuciidukum fi millatihim walan tuflixuu idan abada iyakaaba ka sheekeeyoo yidhi haddayna qabtaan oo ciidanka uu boqorku noo soo diray ayna haleelaan oo ay gacanta nagu dhigaan laba mid bay nagu samayn karaan imma inay milladooda gaalnimada dib noogu celiyaan imma maaragtaane inay dhagaxay nagu dilaan markaa waxay fadileen inay dalka dhanba ay uga baxaan si diintooda iyo iimaankooga islaamnimadooda ay u xafidaan inay aabbayaashooda iyo hooyooyinkooda iyo ahaladooda iyo dalkooga ay joogaan waxay ka doorbideen inay islaamnimada ilaahay uu ku galladaystay inay ilaashadaan waa meesha ay culimmadu leeyihiin diintaada islaamka meesha dhaawacaysa waa inaad ka tagtaa saaxiib xun oo iimaankaaga iyo diintaada dhaawacaya waa inaad saaxiibtinimadiisa waa inaad goysaa almar'u calaa diini khaliilihi falyandur ilaa man yukhaalil baa nebigu uhi calayh isalaatu wasalaam qofku saaxiibka diinta uu qaba ayaa diin adigana kuu noqonaysee ee nin walow ninkaad la saaxiibaysa iska eeg buu nebigu uhi calayh isalaatu wasalaam waa mujtamaca daadna dhallinyarada waxay door bideen weliba waxaa la sheegaa oo kutubta ku qoran ciyaal saboola ma ahayn oo dadkoogu fuqaraa ma ahayn bal waxay ka soo jeedeen reero wada aqniyaa iyo xoolole ayay ka soo jeedeen oo maalqabeennaa ma la fahmay allah ina fahamsiiyo daadna waxay door bideen markaa waddanka dhanba inay iskaga tegaan markaasay weliba waxay baxeen baa la yidhi xilligan oo kale ay magaalada ka baxeen xilliyadan oo kale mid ka maqnaa markay tashanayeen oo xoolihiisa markaa soo daajinaya oo aygiisiina uu maaragtaane uu la socdo kii bay u yimaadeen waa u sheegeen waxay idhahdeen annagu waddanka waan ka tegaynaa waa ka soconnaa oo maxaad uga socotaan waxay idhahdeen iimaanka iyaga ayaa qaaliya iimaankaa qaaliya aaminaadda ilaahay aan aaminnay baa wax walba nooga qaalisanoo waddanka dhan waan huraynaa laakiin iimaanka iyaga islaamnimadeeda cidlo dhigi mayna bay ku yidhahdeen dalka waa mise diinta waa midkay doorteen ya diintay doorteen dalku ha baaba ay yidhahdeen ha ka tagna dalkayaga dadkayaga han weyno laakiin islaamnimada ilaahay nagu galladaystay inayna seegin bay yidhahdeen ajiib daadna markaasay kiina uu raacay markaa aygii markaa isaga la socday adhiga la ilaalinayay ayaa damcay markaa inuu raaco markaasay ku yidhahdeen aygaagan uuna sheegaya naga reeb markaasay yidhi de waayahe reeba dhagax bay markaa harraa kala joogsadeen baa la yidhi luqadii markaa ay ku hadlayeen buu aygu kula hadlo wuxuu yidhi ilaaha aad caabudaan aad rumayseen baan aniguna u qaanaa inuu yahay rabbu samaawaati waalardi maxaa seekeen reebaysaan iska kay dhaafaani raaci buu ku yidhi ay galabta af soomaalina kula hadla ka warrama sidee noqon lahayd magaalada gaarisa waa iska daayeen markaa aygii markuu la hadlay waa iska dhaafeen habeen oo dhan bay guurayeen waa la raadinayaa raadkoogaa lagu taagan yahay waagii markuu rabo inuu soo dilaaco waagu bari waa berigii markuu dhowaaday ayay arkeen markaa kahfay arkeen kahafka wax weyn waa godka buurta dhexdeeda ka soo jeeda weeyaan markaa bay idhahdeen halkan hangallo
maanta oo dhan halkaahan oollo caawa cadaadu fiidka galabta markay cadaadu ay dhacdo oo dhulku madoobaadana haan sii soconno ila maalin haddaan soconno waa layna soo arkaya markaasay seexdeen ila xalay oo dhan waxay ku jireen socod bay ku jireen safar way daaleen way seexdeen markay casar gaaban markay soo kaceen ayay is yidhaahdeen markaas sidan kuma socon karno